shirkan jiraayid maanta waxaan u qabanay maalmahanba waxa uu ururku ku mashquulsanaa runtii sidii uu wax uga qaban lahaa fal tacaddi ah oo wasiirka arrimaha gudaha cali maxamed warcad uu kula kacay suxufi reer Soomaaliland kaasoo uu geystay aftuub iyo jirdil isla markaana si sharciga baalmarsan runtii uu u xidhay muddo 3 cisho ah dhacdadaas runtii ururku maalmahan buu ka baaraandegayay waxaan ururku la tashiye kala sameeyay sharci yaqaan runtii ururka si volunteer ula shaqeeya kuwaas oo maalmahanba daraasad ku sameeyay dacwada sidii loo gudagali lahaa runtii ururka kulamada uu ka yeeshay arintaasi oo ugu dambeeyay kulankii maanta waxa la isla qaatay marka inaan ku shaacino runtii oo halkan ku soo bandhigna saxaafadda in dacwadii oo runtii ahayd dacwad adag hawl badan ay naga gaadhay in maxkamadda gobolku ay aqbashay in dacwadaasi ay baaris u dirto iyadoo amartay xeer ilaaliyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka dambi baarista Soomaaliland in dacwadaasi ay baaraan isla markaana ay sharciga hor keenaan cidii ku kacday go'aanka maxkamaddu runtii wuxuu daba socday kadib markii kulamo horan u yeelnay xeer ilaalinta guud aan u gudbinay dacwadaasi oo cabasho ahayd oo wariye Cabdifataax Ismaaciil Caarshe uu runtii isagu dhibane ka yahay ay ka goos qabsatay isla markaana ay dalbatay runtii in sharciga loo gudbiyo ama maxkamadda loo gudbiyo taasaan u kaliftay markaa inaanu haddana wadadaas u marno maxkamadda runtii garsoorka oo wada shaqayn fiican aan leenahay runtii dacwadaasi uu ajiibay kadib markii ay go'aansadeen in ay guda galaan waxay baaris u direen maanta xeeraalintuna waxay baaris u dirtay amar ah taliyaha qaybta dambi baarista Soomaaliland si uu dacwadaasi u soo baaro isla markaana tacaddiga wariyaha uu geystay mas'uulkii amniga dalka haystay runtii in uu soo baaraan wuxuuna la ballamay markaa taliyuhu sida fariinta uu nagu soo gaarsiiyay sabtida oo dacwadaasi uu dhibanihii ka wareysan doono sidii ay wax u gaareen ururka Solja maadaama uu abuuray yahay ama loo aasaasay horumarinta iyo difaacidda suxufiyiinta runtii waxaan u aragnaa tallaabo horumar ah oo garsoorku qaaday maadaama 25 sano ay adag tahay in Soomaaliland mas'uul ka tirsan runtii dacwad lagu soo ogo waxaan bahda garsoorka anaga oo abaalka ay noo galeen u hayna isla markaana sharciyada ay u hoggaansan yihiin qarankan runtii u dhigay ku ammaanayna in ay dacwadaasi sida cadaalad ah runtii uga garnaqaan isla markaana mas'uuliyiinta xukuumadda hadday noqoto ka imika dacwadan aan ku oogayno iyo hadday noqoto kuwa kalaba runtii dacwadaha sida ay saxaafadda dacwadaha iyagu ay ku soo oogayaan u qaadayaan runtii in ay dacwadaha saxaafadda ka dhankaana runtii mas'uuliyad iskaga saaraan isla markaana si degdeg ah dacwadani maadaama oo runtii ay tahay dacwadaan u aragna in ay qiimo weyn ugu fadhido bahda saxaafadda iyo qarankaba maadaama mas'uuliyiintii dalka u sareysay runtii falka caynkaas kale ay ku kacday in wax ka badan ay dhici karaan si loo soo afmeero ama loo soo afqabto in dacwadaasi ay bahda xeeraalinta iyo dambi baarista runtii garsoorka si dhaqso ah hor keenaan baanu ka dalbanaynaa ururku maalmahanba wuxuu la tashiye ka sameeyay dhinaca sharciga runtii arintan oo runtii aan u aragnay inaanay markii hore koowaad ahayn hore ay dhacdooyin caynkan oo kale suxufiyiinta ugu dhaceen runtii marna cidimay dabaqin in ay sharciga u marto laakiin anagu hoggaan ahaan waxaan u aragnay runtii in lama huraan tahay arintan in la dabagalo oo wax laga qabto anagoo ogsoon in tacadiye ka dhan ah saxaafadda runtii mararka qaarkood ay dhici karaan ama ay dhacaanba laakiin inta badan arrimahaasi hore qaarkood loogu galay wada hadal in anagoo aanu sanadkan daaha ka rogno runtii in sharciga maadaama oo hoggaan cusub sharciga yimid maxkamadii dib u habeen lagu sameeyay runtii anagoo ugu mahadnaqayna sida marka horeba tallaabooyinka uga qaadeen saxaafadda ka dhan ah inaan lagu kicin in tan runtii ay daah furan oo nidaam sharciya maadaama suxufiyiintuba u hoggaansan yihiin sharciga inay runtii dabaqaan marka loo yeero dacwad lagu soo ogo in mas'uuliyiinta qarankana runtii bahda garsoorku iyagana ay saas oo kale sharciga hor keenaan maadaama dastuurka dalkan u yaala uu jideynayo sharciga in loo sameeyahay mas'uul iyo suxufi iyo dadweynaha runtii arinta ma aha arin runtii cid aanu isleenahay dawladdu ku taageeraysaa laakiin waa arin aanu aragna xaq aanu leenahay oo ah inaanu xaq qaade sharciga hortiisa runtii aanu kaga kalsoonaano wixii jawaab ah ee ka soo baxa